الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دين سلامي دمان أرضيدا ومعلن كيني مادة فيزيكسكا أستاذ جاروني. عشرة دي فيزيكسكي فون فور تكسيس رأيان كل حجرنا ما أنتن وحن بلابد دونا جبتر عصب أيام بلابد دونا أولو مجا نوكليير فيزيكس وحن بلابد دونا وحلو يقانو نوكليير فيزيكس أيام بلابد دونا أولو يقانو بودا فيزيكسكا أما نوكلييركا فيزيكسكا جبتر كان مركوا جبتر آد مهم أرضيدا خاصة حلي امتحانات إيو أصل أهان يماددبو إيو جبتر كفايدة وين أيقول لي أرضيدا أصدق أيان إن شاء الله تعالى عن 6 حنا أصو دوب دونا عشرة جبتر كان جبتر كوريين وحد كيلي كرتا الجنال كأد كيلي سا أيقو دمان أيكو وذا شرحين أفك سومالي لو شرحي أيقو ديارة nuclear physics-ka lesson 1 waxaan ka bilaabi doonaa waxa loo yaqaan atom structure ayaan qaadan doonaa atom structure qaab dhismeedka atomka ayaan baran doonaa atom structure qaab dhismeedka atomka marka chapter nuclear physics-ka wuxuu ka kooban yahay 4 cashar ayuu ka kooban yahay lesson 1 waxaan ka qaadan doonaa waxa loo yaqaan atom structure qaab dhismeedka atomka by the end lesson objective marka hadafka casharka waxa kamid ah by the end of the lesson casharka markuu dhamaado the learner ardayga should be able to inuu awoodo number 1 casharka markuu dhamaado waxa laga rabaa inuu explain sharaxaad uu ka bixin karo atomic model maxaa loo yaqaanaa macnaha atomku wuxuu soo maray noocyo qaabab fara badan ay atomku soo maray marka noocyadaas iyo dadka soo dhiraandhiriyay iyo meelihii uu ka yimaado atomka asal ahaan ardayga inuu sheegi karo number 2 describe inuu sheegi karo the components waxyaabo uu ka kooban yahay atomka wuxuu ka kooban yahay components ayaa jira qaybo uu ka kooban yahay atomka inuu ardayga sheegi karo number 3 illustrate inuu kala saari karo isotopes iyo waxa loo yaqaan isobaris number 4 solve ardayga inuu xalin karo some problems dhibaatooyin aan dhoo mas'alooyinka ama tusaalooyin la xiriira structure of the atom qaab dhismeedka atomka marka casharka markuu dhamaado ardayga 4 qodob waa laga rabaa insha Allah markuu casharka uu dhamaado inuu ardayga awood u leeyahay waayahay intaan atom structure aanan gali markuu hore waxaan gali doonaa insha Allah historyga atomic modelka historyga taariikhda uu soo maray atomka ayaan baran doonaa marka laga hadlayo marka atomic modelka ama qaababka uu soo maray atomka represent wuxuu u taagan yahay dhahnay waa wada structure qaab dhismeedka of the atom ku dug like qaabka atomku uu ekaanayo ayuu ku saleysan yahay atomic modelka marka the idea of the atom is markuu ugu horeeyay ereyga atom waxaa soo ikhtiraaqay ama waxaa soo hindisay laba Greek oo soo darsiyaal laba Greek philosopher ayaa soo saaray oo loo magacaabo Democritus iyo Leucippus waa labada nin oo ay keenay ama soo macnaha soo saaray ama soo hindisay ereyga atom marka atom erey ahaan labadaas nin ayaa soo saaray marka taariikhda marka waxay qoraysaa in markuu ugu horeeyay asal ahaan ninkan Democritus uu soo saaray kadibna Leucippus ama Leucippus ninka lagu magacaabo oo ahay Democritus macalinkiisa ayaa marka dambe ayaa u saxiixay kadibna labada nin ka dambeeyay oo atomka uu soo baxay laakiin marka asal ahaan si taariikhda ay sheegan Democritus keenay kadibna macalinkiisa oo Leucippus ama Leucippus lagu magacaabo ayuu u gudbiyay asagana sidii ayuu marka soo saaray marka guud ahaan marka la isku daro atomku waxa soo saaray laba nin oo Greek ah oo lagu magacaabo waxa soo hindisay laba nin oo Greek ah ama waxa soo helay atomka laba Greek ah oo lagu magacaabo Democritus iyo Leucippus qarniyo 5th century ayay soo saareen marka the Greek word ereyga atom asal ahaan atomos ayuu ka imaaday marka waa marka labada nin ayaa soo saaray macnaheedu atom waxa laga wadaa marka indivisible waa ereyga atom waxa loo jeedaa indivisible waxyaabo aan qaybsami karin atomku marka asal ahaan waxay ogaadeen marka su'aalo kale shay matter marka aad haysto matterka waa la kala jibiyaa matterka marka la kala jibiyo oo small la si kala jibiyo qaybta u dambeeyo oo aan la kala jibin karin ilaa calaashan shay walba walax walba ay leedahay marka si group aad laba aad u dhigto aad si kala jibiso al ultimo waxa soo haray gabala ku soo haray gabalkaas marka aan kala jabeynin gabalkaas marka waxa loo yaqaanaa atom alla marka atom isa loo yaqaanaa atom marka waa indivisible waxyaabo aan qaybsami karin maxaa yeelay marka atomyada marka matterka markuu kala jabo qaybta u dambeeyo smallest particle qaybta u dambeeyo ayaa waxa loo yaqaanaa atom alla marka atom they believe that waxay ogaadeen labada nin Democritus iyo Leucippus waxay ogaadeen
atomka could not be broken in loo kala jebin karin smaller pieces gobolo yaryar in loo kala jebin karin marka atom marka maxaa waa atom guud ahaan atom marka definition gareena waxaa leenahay atomku waa the smallest particle of the matter ama macnaha waa qaybta ugu yar ee matterka matterkana waxaan sheegnaa walax kasta oo space buuxin kara oo mass leh cuf leh oo meel banaan buuxin kara waxaa loo yaqaanaa matter ayaa loo yaqaan marka matterka marka la kala jibiyo final waxaa soo haraya gobol u dambeeya gobolkaas oo aan la kala qaybin karin kaas waxaa loo yaqaanaa marka atom marka waa indivisible oo waxyaabo aan la qaybin karin dadkan waxay ogaadeen in atomku uu yahay waxyaabo oo aan gobol aan loo sii kala jebin karin marka atom marka waxaa leenahay waa the smallest particle waa particle ama qaybta u yar of the matter ee walaxda intaas waa ku definition garayn kartaa ama qaybta hore waa qaadi kartaa atomka waxaa kaloo leedahay atomku waa indivisible waaye kaasoo aan la kala jebin karin ama waxaa dhihi kartaa atomku waa the smallest particles waa particulada ama qaybaha ugu yar ee matterku koobay marka atoms marka laga hadlaayo armedof wuxuu ka sameysay marka small particles qaybo yar ee lagu magacaabo proton iyo electron iyo neutron casharka ahdaaftiisa waxaa ka mid ahaa ardayga inuu sheego components of the atom waxyaaba uu ku kooban yahay atomka marka atom wuxuu ku kooban yahay saddex qayb ayuu ku kooban yahay lagu weydiiyo atomka wuxuu ku kooban yahay protons iyo electrons iyo neutrons saddexdaas ayuu ku kooban yahay atomka waayahay marka protonska iyo neutronska waxaa laga helaa are found in the nucleus bu'da gudaheeda ama nucleus gudihiisa ayaa laga helaa maxaa lagu dhahay maadaama atomku ku kooban yahay saddex qayb oo ah protons iyo electrons iyo neutrons marka proton iyo neutron ayagoo wada jira oo si together u socdo waxaa laga dhex helaa inside the nucleus bu'da dhexdeeda ayaa laga helaa of an atom si atomka are almost identical on the mass waana kuwa cufka leh ayaana loo yaqaanaa tusaale halkan waxaa inoo yaalo kasoo qaad inuu yahay nucleus halkan gudaha waxaa ku jiro nucleus ayaa gudaha noogu jiro marka protonka iyo neutronkan waxay ku dhex jiraan inside the nucleus bu'da gudaheeda ayay ku jiraan marka sida sawirka ka muuqdo halkan waa nucleuski waaye ee bu'di waaye waxaa ku dhex jira proton oo loo qaato calaamad b xarafka b iyo neutron oo loo qaato xarafka n ayay ku dhex jirto marka waxaa kuu soo haray maadaama protonka iyo neutronka ku dhex jiraan inside the nucleus electronka wuxuu ku wareegsadaa bu'da ayuu saas ugu wareegsadaa marka asaga inside the nucleus ma ahane waa macnaha wuxuu orbit ku yahay ama wuxuu ku wareegaa waxa loo yaqaano bu'da ayuu ku dhex wareegaa waxaana loo yaqaana electron waxaana loo qaataa xarafka e ayaana loo qaataa marka qaabkaas ayuu atomku u samaysan yahay atom marka muxuu ku kooban yahay atomku wuxuu ku kooban yahay saddex qaybood oo ah proton iyo electron iyo neutrons ay ku kooban yahay marka proton iyo protons iyo neutrons sida aan sheegnay waxaa laga dhex helaa inside the nucleus bu'da dhexdeeda ayaa laga helaa halka electronka uu ku dhex wareego electronka marka inta kugu sharxay wuxuu ku dhahay protons marka leenahay marka protons waxaan dhahnay half wuxuu leeyahay positive charge protonka wuxuu leeyahay chargegiis waa positive ama plus neutronkane half no charge neutron wax charge ma laha marka hadii lagu dhaho macnaha half no charge ah waa neutrons waa neutronada wax charge ma laha halka protonkan chargegooda uu yahay positive charge marka proton iyo neutron maadaama ay inside the nucleus laga helo bu'da gudaheeda haddana labadooda midna proton midna waa wuxuu leeyahay positive charge dan ayuu wataa midna charge ma laha ama danab ma laha protonka marka wuxuu leeyahay positive charge halka neutronka uusan charge lahayn electrons marka laga hadlayo electronada ayaga waxay leeyihiin negative chargegooda waa negative waay and orbit electron orbit waxay ku wareegaan nucleus ay ku wareegaan ayaga marka inside the nucleus ma ahan waa outside the nucleus waxay ku jiraan waxay macnaha bu'du way ka gadaalayaan ama bu'da banaanka ayay kaga yaalaan waxayna ku sameeyaan orbit waxaa la wadaa wareeg oo kale qaabkaas ayay ugu wareegaan electronska marka are much less massive waxay ka cuf yar yihiin then marka la barbar dhigo the other particles labada particle kale ee protonka iyo neutronka waa uu ka mass yar yahay marka asaga maxaa less mass cufkiisu uu yar yahay waxaa ka cuf badan protonka iyo neutronka sidaas sawirkeeda kaga muuqdo halkan waxaa inoo yaal nucleuska waxaan ku sheegnay gudihiisa waxaa ku dhex jiro proton iyo neutronka ayaa laga dhex helaa laakiin electronka waa maxay electronka gudihiisa kuma jiro waa uu ku wareegaa qaabka orbit camal ayuu ugu sameeyaa marka orbitka ugu sameeya waxaa loo yaqaana electronka waa uu ku dhex wareegtaa
kaas marka waxaan soo baranay qaabka atomka loo soo helo atom ahaan atomku wuxuu ka kooban yahay macnaha saddex qaybood proton electron neutron marka dhammaan atomkaas waxaa soo saaray labadii Greek oo loo magacaabo Democritus iyo Lysippus ay soo saareen marka waxaa kaloo jira asna saynisyaanka loo magacaabo J.J. Thomson ama Joseph John Thomson loo magacaabo asna atomka ayuu waxyaabo uu ka soo saaray marka asaga waa ninka soo helay electron ayuu ahaa electron ninka soo helay asal ahaan waxaa loo yaqaanaa J.J. Thomson waxaa loo magacaabaa J.J. Thomson wuxuuna soo helay sanadkii 1897 dadka ayaa markaas waxay ogaadeen atomka inuu ka kooban yahay particle yar ay ogaadeen marka J.J. Thomson asna wuxuu aaminsanaa in atomiska walxaha atomiska aan soo sheegin oo indivisible ka aanan qaybsamin atomku inuu u sameeysan yahay qaab sphere oo kale qaab wareeg oo kale qaabkaas oo kale ayuu atomku u sameeysan yahay ayuu dhahay marka atomku markuu sameeysan yahay gudihiisna waxa ku dhex jiro dhahay positive iyo negative waxa laga dhex helaa positive iyo negative in laga dhex helo ayuu sheegay macnaha charges oo charge negative iyo charge positive ayaa scatters waxay ku firdhisan yihiin inside it matter atomka dhexdiisa waxa ku jiro dhahay positive iyo negative laakiin asaga wuxuu soo saaray electron ayuu soo saaray sanadka 1897 markaas wuxuu dhahay attraction ayaa ka jira unlike charge wixii unlike charge way soo jiidanaa marka guud ahaan J.J. Thomson wuxuu soo saaray waa ninka soo helay electron waay asaga marka wuxuu kaloo sheegay in atomka gudihiisa ay ku dhex jiraan positive charge iyo negative charge inay ku tahay marka halka sida ka muuqato calaamada negative waxay u taagan tahay electron waay marka spherical qaab wareeg oo kale uu sameeysan yahay atomka waxaana ku dhex jiro positive charge iyo negative charge ayaa laga dhex helaa ayuu dhahay waayahay weli marka waa atomki ayaa socdo waxa kaloo marka meesha ka sii qabsaday inuu magacaabo Rutherford asna macnaha wuxuu kamid yahay saynisaanadii wax ka soo daraandariyay atomka asagana marka wuxuu soo saaray positive charge waa ninka soo helay protonka ayuu ahaa Rutherford ayaa lagu magacaabaa waana ninka soo saaray nucleuska bu'da waa ninka soo helay bu'da waa ninka soo saaray bu'da ama soo helay bu'da marka wuxuu dhahay bu'da waxyaabo lighter waxyaabo khafiif ay ka macnaha ku dahaarno dhahay surrounded by lighter waxyaabo khafiif ayaa ku dahaaran kaasoo loo yaqaano negative charge oo ah electron marka Rutherford waa ninka soo helay protoniska soo helay positive charge-ga iyo ninka soo helay bu'da ayuu macnaha uu ku saaray marka kale waa iska dulmareynaa markii saas oo kale atomku markuu sidaas uu yahay gudihiisa waxaan ku dhex jira nucleus gudihiisa waxaan ku dhex jiraa dhahnay waxa loo yaqaan protons iyo neutrons gudihiisa ku jira marka nucleuska gudaha ku jira protonka neutronka nucleuska ninka soo helana waxa loo yaqaanaa Rutherford electronna mar walba waxay ku tahay shells ay sameysaayo way ku wareegsantaa orbit ay ku noqotaa waayahay Bohr nig lagu magacaabo asna wuxuu soo saaray wuxuu dhahay electronka could only orbit waa ninka soo saaray in electronka uu macna orbit ku sameeyo ama uu ku wareego waxa loo yaqaan nucleuska macna atomka asal ahaan electronka waxa soo helay J.J. Thomson laakiin ninka Bohr lagu magacaabo asaga wuxuu ogaaday in electron maadaama uu yahay electronka uu soo saaray J.J. Thomson uu soo helay waxay sameeyaan oo dhahay orbit waxay ku wareeg marka orbitka ay sameeyaan ama energy levelka heerarka ee tamarta ay dhex marto waa ninka soo helay Bohrka marka meesha iska darsamin maxaan dhahnay J.J. Thomson wuxuu soo helay electron asaga wuxuu dhahay electron nucleuska electron ayuu banaanka ayuu kaga yaalaa laakiin Bohr nig lagu magacaabo wuxuu kaloo soo helay maadaama electron uu jiro dhahay electronku wuxuu sameeyaa orbits uu ku wareegsan nucleuska ayuu ku wareegaa macnaha energy level marba level ayuu maraa marka tusaale kale halkan nucleus ay noo yaalo nucleus gudihiisa waxa ku jira dhahnay proton iyo neutron marka mar walba electronku ku wareega marka electronku wuxuu maraa energy level hadda kan waa energy level 1 kan waa level 2 midkaana waa level 3 waay marka levelisk ay maraan energy levelka ninka soo helay waxa loo yaqaanaa Bohr model marka energy level yaa soo helay Bohr model waa electronkana waa J.J. Thomson protonkana waa soo aragnay waxa soo saaray ninka lagu magacaabo Rutherford ama nucleus ninka soo helay marka calaamadan sida colorkeeda kaga muuqdo colorka bluega wuxuu ku cadeynayaa protons waayo inta proton uu ku kooban yahay nucleuska calaamada gaduudka casaankana wuxuu ku sheegayaa inta neutron uu ku jira bu'da electronkana waa orbit mid ku sameeyo oo calaamada cagaarta ayaa ku muujinaysa marka intaana ku soo koobayna waxaan dhahnay nucleuska waxa soo helay bu'da ninka lagu magacaabo Rutherfordka protonne waxa soo ikhtiraaqay waxa soo helay isla Rutherford ayaa soo raadiyay electroninka soo saaray waa J.J. Thomson neutronkana waxa soo helay saynisaal lagu magacaabo James Chadwick ayaa soo saaray marka proton iyo electron neutron ayaa soo saaray protonka waxa soo helay Rutherford electronka J.J. Thomson neutronkana waxa soo saaray James Chadwick lagu magacaabo way halka marka waxaan ku baranayaa waxa loo yaqaan atomic number iyo atomic mass
marka atomic number maxaa la marka atomic number waxa loo qaataa xarafka z ayaa loo qaataa waa is the total number of protons waa inta proton uu ka kooban yahay nucleuska buuda inta proton ay ka kooban tahay waxa loo yaqaan atomic number waxaana loo qaataa xarafka z waaye atomic mass maxaa la cuf atom maxaa la atomic number waa tira atom atomicasna waa cuf atom maxaa la asna xarafka a ayaa loo qaataa definitions marka definition gareena ama qeexna waxaa leenahay waa is the combined waa isu geynta number of protons into proton and neutrons into neutron in the nucleus ee buuda ku dhex jira macnaha atomic number wuxuu u taagan xarafka z marka maxay ku taagan tahay waa inta proton ee ku dhex jira inside the nucleus marka atomic mass macnaha waxa loo qaataa xarafka a asna waa protons iyo neutrons ku dhex jira buuda ayaa loo marka waa kana equation kaas waxa loo yaqaanaa chemical equation ama nuclear equation loo yaqaanaa marka mar walba xarafka x where x wuxuu ku taagan x wuxuu taagan tahay chemical sign mar walba elementiga aad haysto ayaad halkaas ku bedelaysaa eeda maxay u taagan tahay eeda waxay u taagan tahay atomic mass waa soo definition gareeno waxaan dhahnay atomic mass wuxuu ku kooban yahay protons iyo neutrons la isku daray marka xarafka a wuxuu ku kooban yahay proton iyo neutron la isku daray waay halka xarafka zadna uu yahay atomic number oo laga wada atomic number kan waa soo qeexin waxaan dhahnay waa inta proton uu ku kooban yahay neutron marka guud ahaan haddaan soo koobno waxaan leenahay chemical equation ama nuclear equation kaas ayaa lagu helaa marka x ka maxaa marka elementiga aad haysato waa mar walba curiyaha aad ku bedelaysaa eeda maxay kugu taagan tahay waa atomic mass ama waxa loo yaqaan mass number ama atomic weight saddexda baa loo yaqaanaa marka mass number wuxuu ku kooban yahay waa inta proton iyo neutron buuda ku dhex jira ayuu ku sheegayaa xarafka zadna waxa loo yaqaan atomic number waa inta proton ee ku dhex jiro buuda ayuu ku soo saaraya marka qaacid ahaan intaana la isticmaala marka eeda maxaa marka eeda waxay u taagan tahay atomic mass waa marka atomic mass ka soo raadin maxaa sameynay z waxa ku dareysaa n marka z ka oo ah atomic number ayaad waxa ku dareysaa inta neutron marka waa kana guud ahaan maxaa dhahnay atomic mass ka xarafka a wuxuu ku kooban yahay protons iyo neutrons la isku daray marka z ka waa inta proton oo ku jiro inside buuda ay ka kooban tahay intana waa inta neutron uu ku kooban yahay intana uu kugu sii faahfaahiyay wuxuu ku dhahay eeda waxay u taagan tahay number of protons in neutron waa mass number mass number kan waa proton iyo neutron la isku daray zadna waxay kugu taagan tahay atomic number waxa loola jeedaa inta proton uu ku kooban yahay buuda x kana waa chemical element ama waxa loo yaqaan element symbol marka tusaale kale hadaan soo qaadano hata halkan waxa inoo yaalo waxa loo yaqaan nitrogen oo kale nitrogen kor marka tusaale markii 14 ay ka wadato 14 kaas marka wuxuu taagan tahay waa xarafka a micnaheedu waa mass number inta mass number ayuu ku sheegayaa marka wuxuu ku kooban yahay mass numberka proton iyo neutron la isku daray hoos waxay noogu taagan tahay 7 nitrogen waxay wadataa 7 atomic numberkeeda waxay u taagan tahay xarafka z ayuu u taagan yahay marka waxa laga dhigi waxa ma duluud oo kaban soo saar number of protons wuxuu noqonaa 7 noqonaya 7 ayuu noqonaya number of neutron kan maxaa ku heleynaa number of neutron waxa ku heleynaa waxaad sameynaysaa tirada protonka ayaad waxaad ka jaraysaa mass numberka number of waxaa noqonaya marka 14 oo laga jaray 7 waxay noo soo baxaysaa 7 marka inta neutron uu ku kooban yahay waxay noqonaysaa 7 ay marka noqonaysaa example kan waa ku arkaynaa tusaale marka waxa lagu dhahay for uranium element uranium sida sawirka halkaas oo kale waxay noo yahay uranium mass numberka waxa lagu siiyay oo mass numberka waxa lagu siiyay 238 atomic numberkan uu yahay 92 waxaan rabaa markii aan soo raadin number 1 mass numberka marka say ku soo saarayna mass numberka mar walba waa tirada eeda ay ku taagan tahay waa 238 atomic numberkane waxa u taagan z oo xarafka hoose asna waa 92 ayay noqonaysaa atomic numberka element uranium isotopes wuxuu noqonayaa 92 marka neutron marka maxaa ku helay neutron waxa ku helaysaa mass numberka ayaad waxaad ka jaraysaa mass numberka waxa ka jaraysaa atomic numberka marka mass numberka guud ahaan mass numberka waxa haysnaa 238 waxa ka jaraynaa 92 oo number of protons waxay noo soo baxaysaa 146 marka number of neutron wuxuu noqonayaa 146 waxa ku helaysaa marka tirada kore waxa ka jaraysaa tirada hoose waa inta proton uu ku dhex jiro elements uu kooban yahay tirada korena waa inta proton iyo neutron ko la isku daray number of protons ka waa isla z number of protons iyo atomic number waa isku mid number of protons soo saarada lagu dhaho waa 92 atomic number wuxuu noqonayaa isla 92 ayuu noqonayaa number of nucleons wax kale ma aha waxa laga wadaa waa mass number ka waxa qaadanaysaa 232 ayaad u qaadanaysaa waayahay
and isotopes maxaa la marka isotopes iyo isobars ayaa casharka lesson-ka ay kusoo gabagabeynayna. Isotopes definition-kiisa waa intaan. Waxaa leenahay isotopeska waa these are elements waa elementiyo ama curiyaal having kaasoo leh same atomic number. waxay ka sameeyeen atomic number ay ka sameeyeen but laakiin different waxay kala duwan yihiin mass of numbers ay kala duwan yihiin. micnaheedu maxaa waaye element kasta oo leh same atomic number same elementyada isku mid yihiin atom kasta oo elementyada isku mid ka yihiin atomic number kan ay ka sameeyeen laakiin ay kala duwan yihiin mass number-ka waxa loo yaqaanaa isotopes. tusaale hydrogen oo kale waxay leedahay 3 isotopes. tusaale markaan waxa loo yaqaanaa protium markaan waxa loo yaqaanaa deuterium marna waa tritium. marka hydrogen waxay leedahay 3 isotopes. 3 isotopes maxaa la wadaa marka hadda midka koowaad oo kale idin kaga muuqdo wax neutron ah ma lahan sababtoo hadii protonka iyo macnaha hadii la soo raadinayo mass neutron marka la soo raadinayo neutrons waxa lagu helayay atomic number-ka neutrons waxa lagu helayay mass number-ka oo laga jaray atomic number-ka. marka mass number-kan waa 1 atomic number-kan waa 1 marka hadii la kala jiro wax neutron soo ma baxayo. marka elementiga koowaad hydrogen-ka isotopes koowaad waxa loo yaqaanaa protium wax neutron ma laha laakiin wuxuu leeyahay mass number 1 mass number-kan waa soo baranayo waa tirada kore waay wuxuu wataa 1 ayuu wataa. sawirka labaad deuterium-ka asaga wuxuu leeyahay hal neutron sababtoo ah neutron waxa lagu helaa z waxa lagu helaa neutron-ka n waxa lagu helaa mar walbo mass number-ka oo laga jaro atomic number-ka. marka mass number-ka oo ah 2 waxaad ka jaraysaa atomic number-ka oo hal waxa ku soo baxay hal. marka neutron-ka labaad isotopes-ka labaad neutron-kiisa wuxuu noqonayaa hal mass number-kiisana waa 2. midka saddexaadna wuxuu leeyahay 2 neutron sababta neutron waxa lagu helaa mass number oo laga jaro atomic number-ka. marka mass number-ka waa 3 waxaad ka jaraysaa atomic number-ka oo halkii waxa ku soo baxay 2. marka labadaas waxa lagu yaqaan neutron mass number-kiisana waa 3 ayuu noqonayaa. isobars maxaa la asnaa isobars ayagana waxa loo yaqaanaa waa atomyo kuwaas oo leh different elements. sort ko elementyadu way kala duwan yihiin. isotopes maxay isotopes waxa waaye wixii elementiga isku mid ka ah laakiin waxay kala duwan yihiin waxa loo yaqaano mass number-ka ay kala duwan yihiin. maxaa waaye atomic number-ka waa isla tiro ay ka wada yihiin elementyadu waa isku mid laakiin waxay kala duwan yihiin mass number-ka. halka isobars ay yihiin isobars ayaga waa different elements curiye kala duwan waaye waxay leeyihiin mass number-ka wuxuu cagsi ku yahay isotopes. mass number-ka tirada kore way ka sameeyeen laakiin waxay kala duwan yihiin atomic number-ka ay kala duwan yihiin. tusaale waxaa ka mid ah sida nitrogen iyo carbon oo kale. nitrogen carbon labadooda waa different elements waa laba curiye kala duwan waa nitrogen iyo carbon waa laba magac kala duwan. marka labadooda nitrogen-ka mass number-kiisa waa 14 carbon mass number-kiisa wuxuu noqonayaa 14. halka nitrogen atomic number-kiisa uu yahay 7 carbon-ka uu yahay atomic number-kiisa uu yahay 6. marka atomic number-ka way kala duwan yihiin nitrogen iyo carbon laakiin waxay ka sameeyeen wax loo yaqaano mass number-ka. elementyaduna way kala duwan yihiin. marka curiye kaste oo laba curiyo oo kala duwan laakiin ay ka sameeyeen mass number-ka ama number of neutron macnaha ay ka sameeyeen waxa loo yaqaanaa isobars.